بسم الله الرحمن الرحيم. halkan ugbad healthy cooking way asxaabta ugu healthy cooking inta nala joogto waa mahadsiin inta cusubna soo dhawaada like iyo subscribe iyo share. maanta waxaan sameysanaynaa keeg aad iyo aad u fudud oo mararka qaar iska casariye ah oo ilmaha aad siisan kartid ama qofkii martiya markaas aad siisan kartid. waxaan inoo sameynayso maanta Asmaa gabdhaha caruurta mid kamid ah maanta noo suubinaysa oo training ku jirta. halka waxaan noo yaala 3 xabo ukun ah waa meeshaas noo taala. meeshaasna waxaa noo yaala hal bakeeri iyo bar sokor ah waa meeshaasna noo taala. meeshaasna waxaa noo yaala caanaha bacda ku jira oo adiga 500 ml adigu waa galaas iyo xoogaa weey caana ah baa halkaas noogu jira. meeshaasna waxaa noo taala carfisa ama vanilla qofba hadba sida u yaqaano baa meesha iigu jirta. tanna waa chapa mandaasiga lagu sameeyaa ama burka hadba qofka sida u yaqaana lagu sameystaa burarkan xaafadaha lagu sameysto. tanna waa kastarkii caadiga ahayd ama dadba sida u yaqaanaan labaniyad ama seesta qofba sida u yaqaano bayadan xoogaa kaga darsanayna hadii la haydmo. halka waa butter aan soo kululeeyay butterka aan maxaan ku rahdaa midka cusbada leh oo cunada lagu darsado ama waxyaalaha la karinayo. halkaasna waxaa ii yaala 3 bakeeri oo bur ah baa ii yaala 3 galaas oo bur ah baa ii yaala insha Allah hadii la haydmo. marka already skorti iyo ukunti gabadha waa isku dartay waana la isku qasay. waxaa lagu darayaa hal carfisa ah ama vanilla ah qaadaha baan ku darnay iyo hal qaado buuxda oo chapa mandaasi ah ama mid burka lagu fixiyo. waxaan kaloo ku darsanaynaa custard waana la isku soo walaaqay kabacdi hadda burka ku daraynaa. waa bur fudud aad iyo aad u fudud qofka rabtid baa u sameyn kartaa ilmaha yarka qofkii reerkii ilmaha hadda waa wax 5 daqiiqo ah oo aan cuslayn weeye aad uma cusla. marka asxaabta ugbad waxaan idin haynaa wax kasta oo maxaan ku raday aad iyo aad u fudud ama waxyaalo fara badan oo dhinac kasta baan idin haynaa soo dhawaada. haddana burka waa la isku dardarayaa soo maartaan gebigiisa waa la isku dardarayaa ama gacanta u isticmaal ama qaado isticmaal ama bahalka yarka oo cunooyinka lagu karsado. waa kaasa burka waa inuu waa stick cake oo kale weeye keeg waxa ma dhaamo laakiin iska in yar oo boobsiisa weeye. haddaad rabto xurbin baa u isticmaali kartaa laa mushkila ma ah inaad mashiin haysatid xurbin u isticmaal qaado isticmaal wax alaali waxa rabtid u isticmaal. marka waa kaasa bahalka yarka oo ovenka la geliyo saxanka ovenka la geliyo baa lagu shubayaa. saxanka ovenka hadda soo maartaan wuu noo diyaarsan insha Allah hadii la haydmo. marka waa la mariyay saliidii bur yar lagu firfirdhiyay burka sababta loogu firdhinayo waxa weeyaan inuusan qabsan. hadda saliidda marisa burna ku shubtid yara ma ka qabsanayo waa kaas waa in burku sidaas u laalaamo sida keegi oo kale way keeg hadda kan waxa ma dhaamo. laakiin waa iska boobsiis weeye ilmaha isaga sameyso. waxaan gelinay foornada wuxuu ku jira adiga 25 daqiiqo oo kor iyo hoos ah ma badnayn. wuuna ka soo baxay isla markii waa kaasa. fiidiyowga inuu dheeraadaan nacaynay fiidiyowga inuu dheeraan baan ugu talagalnay markii la geliyay markii laga soo saariyay hadda kale waa isu dhowdahay laakiin only intuu bislaanayay buu ku jiray oo 25 daqiiqo ah. waa kaasa waa wax fudud oo aad u fudud oo qof walba uu sameysan karo. dadka markaas ay cayileen waxyaalaha macaanka iyo waxyaalahaas uma fiicna laakiin de mar waa iska sameysan kartaa hadda ilmo yar oo caata haysatid hadii aad maxaan ku radaa casriye iska rabtid waa sameysan kartaa iyo hadii marti markaas ku joogto. soo dhawaada asxaabta ugbad waad mahadsantihiin like iyo share waa kaasa soo ma jeedaan like iyo share iyo subscribe dadkana noogu dirdira wax badan baad ka faa'iideysaan ugbad healthy. haddana waxaa soo socda casharo kale oo qaybta caafimaadka ku saabsan waa mahadsantihiin.